guddoonka labada aqal xildhibaanada sharafta leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu layma maqla miya guddoonka sharafta leh iyo xildhibaanada waa salaamantihiin waxaan rabaa inaan marka hore ku bilaabo u mahadnaqo presentationkii maalintii u dambeysay ay noo jeediyeen guddiga labada guddi ee dastuurka oo runtii si qurux badan u soo bandhigay cutubkii koowaad iyo sidii dooduhu ahaayeen waa ugu hambalyeynayaa waana ugu mahadnaqayaa sida fiican ee ay qaybna u record gareeyeen qaybna u soo qoreen waxaan iyagana ku boorinayaa marka cutubada culayska badani ka jiro oo dadku ay sugayaan doodahooda la bilaabo inay sidaas si la eg xildhibaanada dhammaantood warkoodana u qoraan meesha loo badan yahayna dadka u tilmaamaan si ay si daah furan dastuurka looga shaqeeyo odayaasha saaxiibada ee siyaasiyiinta ahaa ee lahaa baarlamaanka wixiisu ma daahfuro oo waa la boobayaana arrintaa inay iyaga laftooda ku baraarugsanaadaan oo halkan yimaadaan oo doodooda ka dhiibtaan haddii aan u gudbo qodobada maanta lagu jiray cutubka labaad waxaan sakangaraynayaa xildhibaano badan oo halka ka hadlay cutubka labaad qodob 11 waxaa lagu soo kordhiyey kelmad odhanaysa ama qodob odhanaya qofna maqaam iyo maamuus uu leeyahay awgeed ugama baxsan karo la xisaabtan iyo ciqaab faldambiyeed uu galay qodobkaas waxaad moodaa inuu mugdi ku jiro oo mararka qaar ay dhici karto in dad si kale u fakeraya ay ku xalaashadaan xasaanadda dadka mas-uuliyiinta ama baarlamaanka ama xildhibaanada marka qodobkaas ama ha la caddeeyo ama meesha ha laga saaraan soo jeedinaya sidii xildhibaano badani soo jeediyeen mugdi badan baa ku jira wax hadda meesha looga baahan yahay oo loo soo geliyeyna runtii ma garan karo qodobka 15aad xarafkiisa lambarkiisa 4 waxaan iyadana ku raacsanahay xildhibaano badan oo halka ka hadlay oo ah gudniinka gabdhaha waa caado naxariis darro ah say u qorayd iyo xaqiraad u dhiganta jirdil gudniinka gabdhaha waa reeban yahay waxaan ku talin lahaa in sidiisii loo daayo wax oo loogu banneeyo loopholes lagu bannaysan karo in khaladaad lagu sameeyaa meesha ma yaallaan haddii la yidhaahdo gudniinka fircooniga lama samayn karo dad badan oo caado iskaga dhegan baa waxay ku xalaashanayaan in la samayn karo waxan marka qodobkaana sidiisii in loo daayo baan soo jeedin lahaa qodobka 17aad xarafkiisa koowaad qof kasta wuxuu xor u yahay inuu ku dhaqmo diintiisa qodobkan xoogaa mugdi badan baa ku jira maadaama diinta waddanku ay tahay diinta islaamka qodobka ku xigaana uu caddeeyey in aan waddanka lagu fidin karin diin aan islaam ahayn haddana qodobkaas xildhibaano horena waa ka hadleen waddankan waxaan rabnaa waddan ballaadhan inuu noqdo investment badan yimaado ajnabi badan baa hadda inala joogo waddan ka shaqeeya marka iyaga laftoodu inay xaq u yeeshaan inay diintooda caabudaan culimada qaybtoodna waa ka hadashay waxay yidhaahdeen dadka ajnabiga ah ha lagu qoro ha lagu koobo marka qodobkaa dib ha loo siiqeeyo laakiin ha lagu soo celiyo meeshiisa waxaan iyadana waa ognahay oo moogtahay dee diintu karaahiye maaha la iskumana khasbo dadka inala joogana kuma khasbi karo inay diinteenna qaataan marka waxyaabo badan oo inta diinta islaamka khasab ku soo gashay iyo inta wanaag ku soo gashayna waxaaba badan inta wanaag ku soo gashay marka in dadka laftooda la tuso laakiin dadka Soomaalida ah aanay daliishanin oo ay noqoto waxaan Soomaalidu daliishanay ila diinta waddankuna waxa la yidhi waa diinta islaamka diin aan iyada hayna laguma fidin karo qodobka 20aad xarafkiisa qodobkiisa koowaad qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu abaabulo kana qayb galo kulamo ama banaanbax oo si xasilooni ah cabasho loogu muujinayo iyadoo aan ogolaansho loo baahnayn waxaa lagu soo daray in ogolaansho loo baahan yahay marka ma garanayo wax looga bedelay sidiisii
si waafaqsan xeerarka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya macnaheedu waxa weeye oggolaansho soo qaado xeerarka jamhuuriyadda waxaa ka mid ah xeerka amniga oo wasaaradda amnigu ay odhanayso haddaan annagana la weydiisan bannaanbax lama samayn karo marka qodobkaas xorriyaddii lagu muujinayey si amniga marka horeba lagu xidhayo nabada mar hadduu si nabada yahay waa inaan lagu xidhin in xeerar kale la aado marka qodobkaas sidiisii hore ha loo daayo xeerarka lagu xidhayaa waxay keenayaan dhibaato iyo inaanay cidiba mudaharaadi karinba nin kastoo markaas meel joogaa wuxuu xeer ka dhiganayaa ama xeer uu isagu soo saartay ama xeer kale marka qodobada dhowrka ah oo aan ka hadli lahaa waa intaas waxaan ku baraarujinayaa xildhibaanada maadaama waqtigu uu cidhiidh yahay cutubkan oo kale waxaa laga hadlayaa waa 10 qodob badankiisa waa laga hadlay qof kastaabana waqtigiisa ha soo koobo anigu intaasaan ku soo dhameeyey wassalaamu calaykum waraxmatullahi